Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay la wareegtay qalab lagu baaro caabuqa safmarka coronavirus. Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa waxay maanta qalabka baaritaanka caabuqa coronavirus soo gaarsiisay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa qalabkan kala wareegay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO iyadoo qalabkan lacagta lagu iibiyay ay Soomaaliya ugu deeqday dowladda Talyaaniga. Munaasabadan kooban oo wasaaradda ay kula wareegaysay qalabka looga hortago COVID-19 ayaa waxaa goobjoog ka ah mas'uuliyiinta wasaaradda xubno ka socda safaaradda Talyaaniga ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa haatan ay ku jirtaa sidii looga hortagi lahaa faafitaanka caabuqa safmarka coronavirus oo saacadihii la soo dhaafay kiisas ka mid ah laga diiwaan geliyay magaalada Muqdisho. Sidoo kale qofkii ugu horeeyay ee qaba caabuqa COVID-19 ayaa shalay ugu geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.